ها run ahaantii hoos u dhac badan ayaa jiro oo ku imaaday dhinaca dhaqaalaha haddii si loo eego lacagihii la soo diri jiray dhammaantood waxay ku xaniban yihiin Yurub, Mareykanka iyo Ingiriiska. marka waxaa laga yaabaa dadkii oo ku tiirsanaa xawaaladahan in ay dhibaato weyn ay u keentay run ahaantii iska badaa businesskii maxaa yeelay xawaaladaha keli dadka oo qonyaran socodka ama xoogaha lacagaha yaryar loo soo diri jiray keli kuma tiirsaneen dad oo ganacsi leh ayaa ku jiray dadkaas businessahooda kulli way kala istaageen because of the cash flow lacagihii oo socon jiray marka sidaa darteed dhibaato weyn ayaa ka soo gaartay dhinaca dhaqaalaha hoos u dhac weyn baa ku imaaday saameynta ay nagu yeelataa waxay tahay xawaaladaha run ahaantii akawno oo u furnaa oo dibidaha oo lacagaha loogu soo diri jiray ma jirin culayska weyn oo na soo gaartay waxay tahay lacagihii waa lasoo qaadi jiray sida Mareykanka oo kale iyo meelaha kale sida Yurub iyo meelahaas waa lasoo qaadi jiray sidaa darteed isku socodkii ayaa istaagay marka anaga iftiin ahaan xaqiiqdii kolley culayska xawaaladaha kala hayo leenahay anagana culays kale nama hayo laakiin waxaan isku dayaynaa si aan u gaarsiin lahayn masaakiintii ama dadkii ku noolaa xawaaladaha biilish loogu soo diri jiray ayaan isku dayaynaa hadda marka culayskaas baa iska jiro xaqiiqdii anaga hadda iftiin ahaan technology-ga anaga aan soo saarnay darteeda ayaan hadda 80% lacagaheena waxay aadaa si toos ah customer-kii ayagoo gurigood jooga ayaan ka gaarsiinaa hadda Kenya oo kale M-Pesa direct waxa la ayaan leenahay customer-kii ayagoo gurigooda jooga ayay ka soo dirayaan si toos ah account-kooda ay ugu dhacaysaa sida awgeed taas naftirkeeda xoogaa yar wayna caawisay maxaa yeelay mar horeba cash to cash ma ahayn waxay ahayd electronically ayaan usoo gudbin jirnay marka sidaa darteed Soomaaliya oo kale waxaan leenahay wax la dhaho app la dhaho Yeel oo lacagahan ugu gudbino dadkii taasna way u fududeysay laakiin waqti bay leedahay taas naftirkeeda xilli ayay leedahay maxaa yeelay isku socodkii haddii oo weli ay soconin waxaa loogu baahan cashkii inuu meeshii uu gaaro marka كل أنا هذا وأفضل يعني كاستمر كين الحمد لله إلهي حتى هذا وان ودنا دذار كاسان ولي أن لسي جان هذا هنا عالمك ولا in fact ولا أو good أو عالمك دن وكرايسيس أو أدونك دن هايو رنهانتي واحد إفتين جار وإيه معها لكن وأسكو دينا at least 50% إن جار سينو كاستمر كين مالي جوغان بالعقيسة يكوهر الهايين لكن هذا إنسان أشي صعته هذه عالم كيا بكال استاجن دولته أو أبود لها أيام ما أنتو حيليهن أيقو تبقى هايستو أي ليهن وجوجينينا وانفرينا إن مقالوين كي أنا سفرنا محيا لدغاليها هو سوداعي مركا ولا واجرها عقيدي واجرها ولا مركا إلهي أنك برينا ده إنه ننسي قاضو waxaan ka mid ahay dadka suuqan amka ka shaqeeyo niyow suuq hadaan kaaga warramo guud ahaan suuqa iyo gabi ahaanba ganacsiga aad buu hooseeyaa anigu hadda suuqley baan inta coronavirus uu bilowday suuqi wax kasta ma imaanaa mala dukaanku waa iska furnaa waa iska xirnaa lacagii xawaaladii la diri jiray sida China Turkiga aan hadda ku xirnaa Turkiga camal alaab ka dirsan jirnay ka keeni jirnay wixii guud ahaan waa naga istaagay wax dhaqdhaqaaq oo ganacsi xaqiisa ka socdo hadda ma jiraan marka insha Allah inuu Ilaahay rajo u noo bixin baa sugeynaa mooge hadda kulay waxaan qiyaasayaa inaysan hadda kulay rajadeedana saan u sii muuqato maadaama hadda dawladda ay dadaalayso wixii ay xakameynayso dadaal fiican dawladda ay ku jirto insha Allah dadkiina uu iska wada baqayo ama mirti la faray ay wada qaateen guud ahaan kawtiyadan ay kala xiriireen hadda wax ganacsiga wuxuu nooga iman jiray kawtiyada ku iman jiray dadka waxna gadanaya wixina way kala xiriireen wax imaanay hadda ma leh marka insha Allah nasr Ilaahay baan sugeynaa dadaalna dadku waa sigi jira laakiin se ganacsi hadaan kaaga warramo wax ganacsi la yiraahdo oo jiro ma jiraan dukaamada waa la furaa waa la xiraa wallahi niyo bishi wiiga wax u keeni jirnay wiiga alaabaha noolu iman jireen qof hadii sidoo wuxuu haysto waayo wiiga baad alaaba qofka si suuq u helo wax u dirsanay
marka laakiin tii hadda ma jirto maalinka corona virus liiri arrigan oo lagu dhawaaqay laga helay yaa lacag noogu dambeysay in wax gadnay suuq gabi ahaantiisba marka nin xaaladda jirta noocaas weeye marka saas jirta hadii saameynta ugu yeesho qof walba dareemi kartaa keligay ma saameynta guud ahaan wadanka dhan buu saameeyay waayo dadka ganacsigu isku xiran aniga qofka wax iga gadanayo qof ka imaanay gobolada wax kala sii geysanayo wax sii gadanayo wax ba isdaba socday guud ahaan marka wixii isdaba socday oo dadka imaanay wax iga sii gadanayo anna wax ka sii gaday iyo ku wax keenay gabi waa la kala istaagay kii imaanay wax iga gadanayo waa istaagay kii anna wax ka dirsanaa waa istaagay marka nin walba meeshiisu wuxuu ku jiraa allabari ku jiraa hadda wadaan ganacsi kaaga waram noocaas oo xaaladiisu xayir aad xawaaladaha lacagii la soo diri jiray dadka markii lacagaha la soo diro bishii ama Mareykan laga soo diro ama USA laga soo diro lacag fara badan baa wadanka soo gali jiray dadka hadda meesha xawaalada ilinkeeda agteeda deganahay boqolaal Soomaaliya waxa ka geli jiray iswooto wax la yiraahdaan gada iswootooyinkaas aan ka geli jiray wali soo ma jirto baasho waa isdaba socotay aad bi saameyn ugu yeelatay wallahi been ma ku sheegayno hadda dukaamada laftooda sanadkan lojiska xitaa la bixin lahayd xaaladda marka waa iska barakeysan tahay ganacsiga waa sida aad u jeedid hadda suuqan oo kale maxaa kala socdo tan kala ku soo hartay haday xawaaladihii iyo shirkadihii meel walba xiran yihiin maxaa imaan karo wax imaan kara jirin ganacsigan xalwaadaha iyo waxa wada xiran wuxuu u dhigay hoos u dhig si aad u weyn iyo anaga iyo sidaas darteed hoos u dhac noogu imaaday waa iska sidana u jeedid suuq wax dhaqdhaqaaq ma lahan haduu dhaqdhaqaaq ku jirin suuqan wax dhaqdhaqaaq ma imaanayo suuq ay dhaqdhaqaaq karo waa isla socdaan hadii wala wada xiran maxay u istaagi waayeen wax imaanaya ma lahan waa iska sidaas wax soo socday wax soo galaasii galay ma lahan dhaqdhaqaaq ugu la socdaa dharkana imaanaya haddaan marka hore ka bilaabo saan ula wada socono dadka Soomaaliyeed ka warqabaan cudurkan coronavirus markiisii hore wuxuu ka bilaabmay wadanka China ka bilaabmay markii dambana wadamo kale oo ku yaala maaragtay iyakuna China oo South Korea ka mid tahay buu ku dhacay kadibna waxa uu aad iyo aad u galaaftay oo saameeyay wadanka Ingiriiska Talyaaniga Spain iyo wadanka Mareykanka oo iyadana si xoog la hadda uu hayo cudurkani waa cudurka faafa oo afka Ingiriisiga lagu leeyahay pandemic meelo badanna waa ka jira dunida laakiin wadamadaas ugu waaweyn kuwa aad u qabtay marka haddaan ka eegno xagga dhaqaalaha si looga hortago oo faafinta cudurkan loo joojiyo wadamadaas ay ka mid yihiin dhaqaalayaasha waaweyn oo dunida ugu horeeya tallaabooyin adag bay qaadeen oo arrimaha caafimaadka la xiriira si loo joojiyo faafinta cudurkan markaana waxa la bilaabay in dadka aanan loo ogolaan inay isu yimaadaan shaqada maaragtay shaqooyinkii dadka la yidhaha aadina guryihiina iska jooga baabuurtii iyo diyaaradihii dunida u socotay oo dhan la joojiyey marka xayiraadaasi waxa ay keentay in markaa dee uu wax soo saarkii dhaqaalaha iyo waxaas oo dhan aad u curyaamaan ganacsiga dunida ama dhaqaalaha dunida oo dhan wuxuu ku xidhan yahay dadka wax iibsanaya oo maqaayadaha tagaya oo wax cunaya oo wax gadanaya marka waxaasoo dhan dadkii shaqayn jiray haddii ayna dadkii waxaa maaragtay ay shaqooyinkii joojiyeen dadkii shaqayn jiray shaqooyinkii baa laga eriyey marka dad badan baa shaqooyinkoodii waayey shaqooyinka aad u saameysay tallaabooyinka caafimaad oo la qaaday waa shaqooyinka maaragtay dadka ugu xirfad badan aan lahayn oo shaqooyinka maaragtay aanan u baahnayn cilmi iyo khibrad badan marka dadkaasina waxaa u badan dadka immigrantska iyo Soomaalida iyo dad badan ay ka mid tahay marka inkastoo guud ahaan wadamada dhaqaalahoodu saameeyay Soomaalidii wadamada lacagta laga soo diro xoogeeda xawaaladaha oo Yurub iyo Mareykan aad iyo aad bay saameyn weyn u yeelatay taasi waa taa guud weeyaan marka haddaan dib ugu soo noqono xaggan Soomaaliya iyo saameynta uu leeyahay inaka wadankeena ilaha dhaqaalaha ugu waaweyn waxa ka mid ah wadanka xawaaladaha maaragtay lacagta looga soo diro dadka Soomaaliyeed waxa lagu qiyaasaa 40% maaragtay dadka Soomaalida oo wadanka jooga in dhaqaalo uga yimaado ama lacag uga timaado xawaaladaha waxa lagu qiyaasaa ilaa lacag 2 bilyan oo dollar sanadkii inay Soomaaliya ka soo gasho runtii arrimahaas lacagta la soo dirayo marka dhaqaalaha Soomaaliya waxa la yidhi waa 6 bilyan oo kala lagu qiyaasaa marka 2 bilyan waxa weeyaan waa $3 oo $1 ama 30% qayb weeyaan marka waad garan kartaa marka dadka badan oo shaqooyinka waayay
waxaa hoos u dhici doonta runtii lacagtay soo diri lahayn maadaama ay shaqo la-aan ku dhacday. arrimaha kale oo dunida marka la eego cudurkan marka la eegayo haddii ay dowladuhu qaadaan tallaabooyin sida aan ku yidhi dadku inayna isu tagin, iskuullada la joojiyo, shaqada la joojiyo, arrimahaasoo dhani waxa ay keenayaan dadku in dhaqaalihii waddankana hoos u dhaco, caafimaadkiina marka wadamada galbeedku waa awoodi karaan, dhaqaalahooda xoog buu leeyahay, sidii ay caafimaad fiicanna way leeyihiin, dadka qaarkooda shaqooyinka waayana lacag caymisa iyo si ay u kabaan baa jira. laakiin wadamada ay ka mid tahay Soomaaliya ama wadamada la yidhaaho wadamada soo koraya ama wadamada la yidhaaho emerging countries afka Ingiriisida, wadamadaasoo dhan aad iyo aad runtii ma leh nidaam caymis oo kala ama waxa la yidhaaho welfare iyo wax saas oo kala. marka innaka Soomaaliya haddaan eegno hadda sida wararku igu soo gaaray dhawaan waxa aan wareystay xawaaladaha waddanka uu leeyahay, waxayna ii sheegeen in xawaaladuhu hadda ay cayimeen ama xadideen lacagtay u ogolaan jireen in dadka Soomaaliyeed soo diraan oo Soomaaliya u soo diraan. sababtuna waxa weeyaan Soomaaliya waxa saaran xayiraad baa saaran xagga dhaqaalaha oo ilaa sidii 15 sanadood ugu dambeeyay ah intii bankiyadii waddanku dib u soo noqday. xayiraadaasi waxay la xidhiidhaa wadamada galbeedka oo iyagu ah dadka xukuma dhaqaalaha iyo sida bangiyada iyo sida lacagyooga la sugu diro. Soomaaliya waxay yidhaaheen waxa aad leedihiin dhibaato weyn oo ah argagixisada ka jirta waddankiina, waxa ay isticmaalaan bangiyadiina isticmaalaan oo lagu maalgeliyaa. marka nooma cadeyn kartaan waddankiinu nidaamu noogu cadeeyo ma jiro in argagixisada iyo waxaasoo kale inayna isticmaalin bangiyadiina. waxa kale yidhaaheen waxa laga yaabaa waxa la yidhaaho lacagtan maaragtay la rabo xaaraanta in la dhaqo afka Ingiriisiga loo anti money laundering, kuwaana maaragtay nooma cadeyn kartaan. sidaa darteed bangiga Soomaaliyeed oo bangigeena dhexe ee Soomaaliya iyo bangiyadeenaba waxa loo diiday inay isticmaalaan nidaamka lacagaha dunida la sugu diro. marka lacagta Soomaalidu ay maaragtay waddanka dhaqaalaha loo siiyo deeq bixin inaloo siiyo lama keeni karo oo ma isticmaali karno si electronic ah, dowladdeena looguma soo diri karo. marka lacagtaas iyada oo jawaano lacaga oo malaayiin dollar baa laga soo qaadaa Turkiga iyo Dubai. Turkiga waa dhaqaalaha waddanka, Dubayna waa bangiyadan xawaaladaha iyo bangiyadan private-ka ah. marka lacagoogaas maadaama waddanka si cilmi electronic loogu soo diri karin lacagta iyadoo cash oo jawaano ku jirta la keenaa khasnad weyn oo ku taala bangiga dhexe ee Soomaaliya. marka cudurkan coronavirus oo hadda dhacay dartiis maadaama diyaaradihii dunida oo dhan la joojiyay inay yimaadaan, lacagyoogii laga soo qaadi jiray oo Dubai diyaaradaha ay uga soo qaadi jireen dollaradii ay soo diraan Soomaalidu iyo waxaasoo dhan iyo tii dowladaba lafteeda, marka waa adag tahay in kaashkii la keeno waddanka. marka waxa aad u yaraaday lacagtii waddanka taallay oo dollarka ahayd. marka xawaaladii waxay bilaabeen inay yidhaahaan lacagtii baa naga yaraanaysa oo sii gurasa, marka ma wada bixin karno lacagyooga rabtaan inaad reerihiina u soo dirtaan. marka waxay bilaabeen hadda sida xawaaladaha qaarkood la ii sheegay oo kuwa waaweyn ka mid yihiin ilaa 300 ilaa 400 baa lagu xadiday inuu qofka soo diri karo. dhawaanna haddii uu sii socdo xayraadan diyaaradaha iyo dunida lacagtu hoos bay usoo dhici karaysaa, waxaaba dhici karaysa 100 ama 200 dollar inay markaa noqoto. marka arrintaasi waa caqabad weyn weeyaan oo dowladda Soomaaliyeed loo baahan yahay inay wax ka qabato. waxaa loo baahan yahay dowladdu labada wadan oo arrimahaas aan ku sheego nidaamka lacagyooga loo bixiyo xukuma waa dowladda Mareykanka iyo dowladda Ingiriiska. marka dowladda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay inay labada wadan la hadasho oo laba xal midun ay keento. mid inay ku tiraaho muddadan uu cudurkaniina hayo oo socdo coronavirus naga qaada xayiraadaas oo noo ogolaada bangiyada iyo bangiga dhexe Soomaaliya in lacagta loogu soo diri karo si loo badbaadiyo dad badan oo maaragtay qutulyoomkoodii iyo cuntadoodii iyo wax kasta ku xidhan tahay. taa waa inay dowladdu samaysaa. wax tallaabay ka qaaday anigu ma maqal wali dowladda. arrinta kale oo labaadna waxa weeyaan dowladda Soomaaliyeed inay u tagto bangiga dhexe ee dunida, bangiga dunida iyo hay'adda lacagta la yiraahdo IMF iyaguna marka ay ka furaan bangiga dhexe meel ay siin karaan wax la yiraahdo lacag credit ama wax saas oo kala
oo u ogolaan karaan inay wax lacag oo maaragtay dhaqaale iyo wax gooniya siiyaan. marka arrintaas waa arrin maaragtay meeshiisa ka jirta. waxaa intaa kale ku sii dari lahaa si cudurkan loola dagaalamo waa cudur u baahan Soomaaliya oo dhan inay isu timaado oo mid noqoto oo cudurkaas sidii looga badbaadin lahaa wadanka. waxaa loo baahan yahay dowladda federaalka oo wadanka hoggaankiisa haysa inay sameyso guddi qaran oo si degdeg ah arrimahan cudurkan ula dagaalanta. guddigaasi waa inuu noqdaa guddi ballaadhan oo Soomaaliya oo dhan ku jirto. waa inay ku jiraan dad ka mid ah xubnaha dowlad goboleedyada, waa inay ku jiraan dadka bulshada rayidka, waa inay ku jiraan culamada diinta, waa inay ku jiraan dadkii Soomaaliya shirkadaha ganacsiga private oo waaweyn sida Hormuud iyo Dahabshiil iyo kuwa maaragtay ama isgaarsiinta ama xawaaladaha. marka iyo dhakhtarada khaaska loo leeyahay private-ka, isbitaalada, jaamacadaha. waxaa loo baahan yahay dadka in la isu keeno oo kalsooni la siiyo in taladaas iyo sidii loo maamuli lahaa laga wada qayb galo. marka waxaa loo baahan yahay madaxda Soomaaliya intuu kaligood intay meel istaagan oo TV-yada u yeedhaan oo kaligood hadlayaan iyagoo dhex taagan dadkii Soomaaliyeed iyo guddiyadii la sameeyey iyo oo kal iyo laab ka tahay baa loo baahan yahay. arrimahaasi waa arrimo dad noloshoodii dad badan baa dhimanaya haddaan dadaalkaa la sameynin. waa la dhaafay waqtigii siyaasad iyo waxaasoo dhan iyo maxaan ku idhahaa maaragtay qolaanan la hadlin iyo waxaasoo kale. waxaan ku jirnaa arrin degdegaan ku jirnaa. waxaa loo baahan yahay hoggaan waddanka oo dhan isu keena. midda labaad oo muhiim ah oo ummadda Soomaaliyeed ay muhiim tahay inay ogaadaan, lacagyo fara badan bay dunidu ku deeqaysaa hadda. IMF-tu ama sanduuqa lacagtu $100 bilyan buu diyaar uga dhigay in dunida lagu caawiyo. 50 bilyan waxaa ka mid ah bangiga dunida, midowga midoobay ee European Unionku lacag badan bay maalin dhawood ugu dhawaaqeen Soomaaliya. meelo badan WHO ururkan caafimaadka ee maaragtay ku yaala Geneva. marka dad badan baa dhaqaale badan iyo wax badan keenaya. dhaqaalahaasoo dhan waxaa loo baahan yahay si daafuran oo xisaabtan leh oo dadka Soomaaliyeed loo soo bandhigo oo dawladdu maalin kasta u sheegto dhaqaalaha imaanaya wadamadu ka imaanayo. waxaasoo dhan haddii aana kalsooni la siinin waxa markaa dhici karaysa oo nasiib darrada ugu weyn waxa weeyaan iyadoo wixii loogu talagalay inay si kale maamul xumo ama ha noqoto musuqmaasuq ama si kale ha noqoto. marka arrintaasina waa muhiim weeyaan. waxa kaloo muhiim ah dawladdu in weli ma qeexin waa khaldanaan karaa haddii aan khalad waa la sixi karaa. weli dawladdu uma sheegin meelaha xarumaha caafimaadka ee loogu talagalay in la dhiso oo dunidu gacan ka siiso oo la keeno qalabkan loo baahan yahay daawooyinka, loo baahan yahay qalabka dhakhtarada ku shaqeeya inay naftooda lagu badbaadiyo, loo baahan yahay sariirihii ICU-ga waxa la yidhaahdo kuwa lagu neefsado iyo tababaro badan oo dadkii loo dhiso. marka xarumo waaweyn waa in laga dhisaa waddanka oo kuwa ugu waaweyn gobolada laga dhisaa. markaana dadka loo sheego waxay tahay hawlahaasoo dhan waa hawlo muhiim ah oo loo baahan yahay dawladdu inay maaragtay una sheegto dadka. lacagooga imaanayna waan ogahay wadamo badan waa horaaba hadda lacagtii loogu soo sheegay. dawladdu arrimaha ka hadlaysa maarag arrintaasina waa muhiim weeyaan sidii cudurka loo wada. ta ugu dambaysa waxa weeyaan maadaama dad badan oo Soomaaliyeed oo lacag soo diri jiray qurbaha ka soo diri jiray shaqooyinkoodii waayeen, dawladda waxa looga baahan yahay inay dadaal xoog la sameyso oo wadamada dunida caawinaya in meelo badan oo dadka cunto la siiyo. dad aanan shaqeynin ama xitaa wadanka gudihiisa dad badan baa la yidhaahdaa isu tagina ha soo bixina maqaaxidihii baa la xidhay. dee markaa qutliyomkii dadkii la soo bixi jiro oo dhan markaa dee dadku ma aha dad mushaahariya qaata Soomaaliya. dadka xooggiisa waa dad iyagu iska xoogsada weeyaan. marka gaaja imaan karta haddii cudurkoo jira gaajana kuusii raacdo waa khatar ka daran iyo waa nasiib darro. marka dawladdu waxaa loo baahan yahay inay cunto dadka maaragtay inta muddada lagu jiro cudurkaas dhibaatadiisa inay hubiso in maaragtay xarumo iyo meelo cunto dadka lagu gaarsiin karo iyo qaabkii iyo nidaamkii oo goboladu door ka ciyaaraan oo muhiimta oo ciidanka xitaa laftiisa militariga wadamada oo dhan doorar bay ka ciyaaraan. marka cid kastoo Soomaali weyn isugu tamaada maaragtay arrintaas sidii wax looga qaban lahaa.